afartaa bilood waxa la dilay 4 nin oo habara wala madaxweynaha waxaan uga digayaa safarada soo fadhiga xun leh meelaha ay tagi jireen madaxweynayaasheenii hore oo wali Soomaaliland ka dhicin waxa weeyaan istirbaagsiga foosha xun leh adiga iyo beeshaadu aad bilowdeen madaxweyne ay ka mid tahay dilista xirista iyo eriyada shaqaalaha intii dhimatay waxaan leeyahay samiriyay manalaha idinka siiyo sidoo kale waxaan leeyahay bartaha ka soo kicina bartaasad fadhiisaan dhimasho nolol deegaankiina joogisaan ama dawlad baynu noqoni ama jabhad baynu wada noqon ama dad dawladu ixtiraam iyo qadarin ku wada joogay noqonayna ama jabhada imika la wada shaqadeeda ee maanta deegaanada waa jabhadina dawladnimo ma aha jabhadaasina wada qaadanaa baan leeyahay assalaamu calaykum dhamaan salaamaya dadweynaha ummadda reer Soomaaliland waxaan maanta halkan soo istaagay on dareenka tiiraayada la qaybsanaya dadka ay dawladoodii ku laysay degmada Agabar oo aad iyo aad uga xumahay marka koobaad tacsiyaan u diraya marka labaad waxaan leeyahay dawladda Cabdiraxmaan Ciro waxa ay bilowday istirbaagsi kulay Soomaaliland waxay ahayd reero la isku tagay oo heshiiyay oo iyagu samaystay dimuqraadiyadda hadii reerahaas beeshii ugu baaxadda weyneed ay ku bilowdo waxyaalahaas adimka arkisaan ee maqraatimo doonta ahi waxay inoo horsoodi doontaa burbur waliba xoog leh oo laga soo kabeen karin siiba waxay burbur u tahay dawladda cusub ee 4 bilood wadanka haysata ee istirbaagsiga bilowday ay u tahay burbur xoog aad weyn leh anaga waxba naguma sameynayaan waxna nama yeeli karto taasi sababtoo ah beel aad u baaxad weyn baan nahooyadu hadii ay xisaabtanto oo beelaha reer Soomaaliland xisaabtamaan beesha ugu baaxad weyn iyadu dawladda abaanunay waa marka koobaad marka labaad anigu halkan waxaan dawladda u sheegayaa waliba anigu maanta waxaan la hadlayaa Cabdiraxmaan Ciro oo ah madaxa ugu sareeya xukuumadda Soomaaliland waxaan leeyahay madaxweyne waxa ay bilowday xukunkaagu waxa uu bilaabmay muddo laga joogay imika 4 bilood mise 5 bilood afartaa bilood waxa la dilay 4 nin oo habara wala sidoo kale waxa la dilay waxa la soo saaray ama shaqaalaha dawladda laga soo saaray oo aan xaq u lahayn oo aanan cidna u daba fadhiisanaynin oo anagu leenahay oo ay ka mid tahay dadkii qaranka Soomaaliland soo dhisay aanu nahay dadkii ka taagan tahay aanu nahay dadka iyagu ay ka nooshay Soomaaliland aanu nahay in shaqaalihii dawladda oo awal horeba la qaybsan jiray beel wal oo reer Soomaaliland ku jirtay in aad arkaysaan in hablihii iyo inamadii shaqaalaha dawladda mirmir loo soo eriyeeyo oo lagu bedelayo beesha madaxweynaha qaranka Soomaaliland inta beel kale laga saaro wali ma dhicin intaas oo Soomaaliland madaxweynaha soo maray intaas oo madaxweyne milse 6 madaxweyne kan 6 ku yahay baa soo maray oo adigu 6 ku tahay madaxweyne intaas ba shaqaale dawladeed wali lama arkin oo lama maqlin inta laga saaray mid kale oo madaxweynaha isku beel yihiin in la geliyay meeshiisi waa koow waa laba oo wali Soomaaliland ka dhicin waxa weeyaan istirbaagsiga foosha xun leh adiga iyo beeshaadu aad bilowdeen madaxweyne ay ka mid tahay dilista xirista iyo eriyada shaqaalaha waxaan ku leenahay madaxweyne dawladii quruxda badneed ee lagu wareejiyay dadkii walaalaha ee lagu wareejiyay dalkii quruxda badnaa hadaad maanta aad doonaysid inuu kala tafaraarqo annaguna waanu ku raacaynaa mowqifka waanu idinku qaadan ama dawlad baynu noqoni ama jabhad baynu wada noqon ama dad dawladu ixtiraam iyo qadarin ku wada joogay noqonayna ama jabhada imika la wada shaqadeeda ee maanta deegaanada waa jabhadina dawladnimo ma aha jabhadaasina wada qaadanaa baan leeyahay waa qodobkaas aan kaga baxayaa dadkii halkan ka dhibaatooday ee Agabar dhibaatada ku dhacdayna waxaan leeyahay dhamaantiin Ilaahay ha idin booga dhagayo intii dhimatay waxaan leeyahay samiriyay manalaha idinka siiyo sidoo kale waxaan leeyahay bartaha ka soo kicina bartaasad fadhiisaan dhimasho nolol deegaankiina joogisaan dhimasho nolol barta aad degantiimad ku dagaalamaysaan baan idin leeyahay waxaan halkan ka sheegayaa madaxweynaha u sheegay madaxweyne waan ognahay saraakiisha xiran ee habar awal khaas ah iyadoo oo saraakiisha kale beelaha kale la xirnaa la sii daayay ama dambi hagaan aan biyay gelin laakiin wali ma dhicin in lagaga imaado laba dad saraakiil iska hortimday qaarna ay xirnaadaan qaarna la soo daayo oo beelnimo loo soo daayo wali Soomaaliland kama dhicin waxyaalaha aan Soomaaliland ka dhicin oo waligeed ka dhicin ma imika socda taasina waxay keeni doontaa wax aynu ka nimidnay 1994 inay maanta dib ugu noqoto oo ahayd beelaysi iyo isku xoog sheegasho aniguna waxaan ahay beesha ugu xoog weynaa hadii xoog tagto waxaan ka digayaa war Soomaaliland ta qurux badan wada ilaashana baan leeyahay madaxweynaha waxaan uga digayaa safarada soo fadhiga xun leh
meelaha aynay tagi jirin madaxweynayaasheenii hore ee uu tagayo meelaha aynay meeqaamkiina lagu aqoonin ee uu istaagaya xukuumaddiisa iyo isagaba waxa la madaxweyne ka fogow meelaha qarankeena iyo qabkiisa hoos u dhigaya ay ka mid tahay safarkii ugu dambeeyay u baxdo dhowr safar baa madaxweyne u baxday dhowrkaas safarba fashil Somaliland dusheeda hoganaya oon kaliya kugu koobnaanaynin ayaanu arkaynaa waxaanu ku leenahay Somaliland tii qabka lahayd ee kor u kacay ee ictiraafka tiigsanaysay halkeeda hadaan kaba sii wadi karin wax alliyo waxaanu ninaahna garanmayne dawladda fadhixun waxa leeyahay sidan ha laga bedelo wax